بسم الله الرحمن الرحيم داوديان halkani waa shabakada caalamiga ee Boroma News oo maanta waraysi aanu Janiskiisa iyo waqtigiisa aad in badan aanu daba joognay gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye haatan ay madaxdiisa hogaanka ugu sareysa ee hogaaminaya musharaxa jagada madaxtinimadu ay socdaal ku joogaan magaalada Boroma Jaamac Ismaaciil oo ku magac dheer Jaamac Shabeel ahna lafdhabarta xisbiga kulmiye marka aynu eegno tala kasta iyo tusaale kasta oo xisbiga kulmiye uu leeyahay siiba shirkii la oran karo waa shirkii xisbi qabsado shirkii ugu cadaalada badnaa hogaamiyihii dhex joogay markaas haddaba shabakada caalamiga ee Boroma News iyadoo siyaasigan muddo si badan u daba joogtay ayaa maanta halkan waxaan ka codsanay inuu waqtigiisa wax naga siiyo waa aniga Hori Axmed Horiye shabakada caalamiga ee Boroma News iyo Jaamac Ismaaciil Jaamac Shabeel Jaamac ku soo dhaw shabakada caalamiga ee Boroma News wad mahadsantahay bal Jaamac waxaad nooga warantaa maadaama hogaankii xisbiga ugu sareeyayna odbaha xisbiga kulmiyana tahay socdaalka xisbiga kulmiye horta aw bariga ku marayay muddooyinka ugu dambeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim socdaalka suuxaha oo salku hayo adugi dalka abaara ka dhacay dhinaca bariga abaara aad u kulba ka dhacay socdaalka ujeedadiisu horeysa iyo dambaysa waxayd sidii loo kuurgeli lahaa dhibaatada dadka soo gaadhay iyo xaaladda abaarta wax ka qabashadeedana looga fikir lahaa marka war la helaba tala la helaba Soomaalidu tiraahdaa marka meeshii la tago ee la arko dhibaatooyinka jiray baaxad ay leeyihiin ayaa wax ka qabashadeedana la garan karaya oo iminka wada ay noo muuqatay intii kadib ay noo muuqatay si wax loo qaban karayo dhibaatooyinka marka ujeedada su'aalku waxay tahay in xaaladda la dirso la fahmo dadka wax ka qabashadeeda lagu talaabsado way markii aad xaaladii soo aragteen qiimayntii aad sameeyeen maxay idin ka soo baxay qiimaynta waxa laga soo baxay dhibaatada aad iyo aad u ballaaran tahay waqtiga Ilaahay baa roobka haya waxa noo muuqatay inuu roobku dii waayo waxa la yeeli karo iyo waxa loo baahan yahay oo inuu roobku dii waayo waxa noqonaysaa xoolada in marka laga sabro dadkii la seef gareeyo si dadka loo seef gareeyo lahaa marka taladeedii ay noo muuqatay oo qorshaha lagu daray xoolaha laftooda inta ka horreysay la seef gareeyana qorshaha loogu jirtaa oo haddii neefka la seef gareeyo dadkiina waad seef garaysay oo haddaad tiraa qofkoo keliya dee qofku maalin walba waxbuu baahan yahay laakiin qofka neefkanu ku noola neefkii haddaad u seef garayso qofkuu noolaanaya markaa qorshaha kale isaguna jiro ah in neefka la seef gareeyo horta iminka si qofkii uu noolaado xisbiga kulmiye muddooyinka ugu dambeeyay waxa la arkay isaga oo aanan waxba ka tagayn deegaanku maraba oo dhinacii siyaasaduna ay daba socoto oo la arkayo hogaamiyihii xisbiga oo madaxweyne Ziiraan hor socdo oo madal iyo meel kasta istaagaan dadku ay soo dhaweynayaan arintayada noocaas waxa weeye waxay ku tusaysaa xisbiga baaxadiisa xisbiga kulmiye inuu yahay xisbi loo leeyahay oo bari iyo galbeed bashuraaka lagu yahay marka dadku markay ogaadaan ay dareemaan inay wax ku leeyihiin iyo waxa ay qariib ku yihiin si oo maaha dadku waxay wax ku leeyihiin way u soo hiloobaan way jeclaadaan markuu yimaado dayaga laga gartay ka muuqata marka waxa TV-da kaarkisa waxay dadku bari iyo galbeedba waxay rumaysan yihiin oo xaqaduna tahay xisbiga kulmi in la wada leeyahay oo cid gaari aanay lahayn gobol gaari aanu lahayn qof gaaro sheeganay aanu jirin taasaa keentay meel ceelgaabay la Boroma shalay aanu soo galnay sidii loo soo dhaweeyay ilaa arkaysay mudane gudoomiye dad baa mid kale aaminsan Musabixi Cabdiyo nin adag lagu ogaa in xisbiga hogaankiisa markii loo dhiibay uu noqday ninka ugu jilicsan ugu hadalada wanaagsan maxaa isbedelay waxa isbedelay marna dadku sheekay hayeen oo xamba la wado waa kaaso waa ninkaaso mid maalin arkay soo yar xaraaqsan ay oo yiri hala arkay maalinta ayka wax xaraaqsan ayka laakiin qofka marka xilka loo dhiibo xilka qabto ayaa la gartaa qofku waxa uu yahay oo waligay inta aan xil qabanin waa is wanaajin karaa siba qofba siweerka laakiin maalinta xilka qabto ayaa waxaan hay la baranaya Muuse ladee markii uu xilka qabtay waa imika la bartay inuu yahay ninka ugu dulqaadka badan arlada
marka wixii hore qof markuu xilka qabtay uu ka soo qaado markaas qofka markaas u badbaran karaysa taariikhda siyaasiga soo shacbaha iyo qancinta dadka muuse waxaan oran karnaa markuu musharax madaxweyne oo dalkan iyo dadkan in lagu aamino uu istaag ayay ka soo baxday mata absolutely marka horeba uu muuqday xisbiga dhexdiisa uu ka soo muuqday oo xisbiyadu waxyaabaha ay kaga duwan yihiin nidaamada kale waxa weeye xisbiga markuu hogaamiye la doortay joogo xisbigu markuu xisbi asal yahay oo dhaba waa inay sii muuqdaan ka ku xigi doona iyo ku xigi doona ragga waa inay sii kala arkaa waa dadka go'aan ka gaaraya xisbiga dhexdiisa ayuu ka muuqanaya marka hore uu sii muuqday muuse inuu yahay hogaamiye bedelaysiinayo su'aal adiga ku khaas waan ku weydiin doonaa oo intaan waraysiga yar kooban ka qaadayno anoo waqtiga aad kaaga mad celinayo ku weydiin doonaa Boorama timaadeen berbera waqti badan baad joogteen hawsha aad wadaani xisbi mucaarad kuma dhiiranayo oo inaad beelihii tiraahdaan beel kastaba sideeda ayaan noo hor fadhiisanaynaayoo waxa ay maalinta iyo maanta dhil nala gasho iyo dhilal ka duwan siyaasiyiintii hore ayuu xisbiga kulmiye la soo baxay waxtaa madaxweyne Siiraayo waxyaabo nagu maqaalaa dhilka muu gali jiray intuu yiraahdo xisbiga waxa iyo waxaasan dadkaas u qabanaya muu gali jiray ilaa kaftanka siyaasadda marka loo yimaado mooyaan beeshiisa waxyaabaha la galay madaxweyne Siiraayo baa la arkay oo dalkii dadka laga arkay idinkuna waxay horaana waxbaan idin horaya xilalkii dalka ugu cadcadaana isagu waa ka madaxweyne Siiraayo wasiirada dalkiisa uu dhibo 7 sano jooga oo xilka ka qaaday Muuse Biixi Cabdi siyaasadan curdinka ee ka duwan siyaasiyiinta kale ee qof kastiba aniga kiyo obinaha ila hadlo halkii ka timid baamanaysa siyaasadda hogaamintiisa ka timid waa qodobkeen imika ka hadlaynay qofku markuu xilka qabto ayaa tiisu ay soo baxdaa marka waa hogaamintiisa weeyay qaabka hogaamintiisa imika anagu waxaan u baxaynaa maanta ku noqonaynaa wada hadalkii garabkii Axmed Muumiseed ee barnaamijkiisa ku leenahay shirkii lagu joogay isagoo khamiista wala sheegay isagoo khamiista u joogaya cid walba oo arkaya magaaladana luuqul buu gelaya halkii wala cod ku jira uu ka soo saaraya marka waxa weeye waa hogaamiye kasta iyo xeeladiisa marka tartan lagu jirana dee waliba xeeladiisu banaanka keenaya oo ku xoogsanaya way adiga Boorama timaadeen oo wana wali Boorama ku jirna beeshii garabkii ka go'ay Axmed Muumiseed hogaaminayay reerkii ka go'ay muxuu ahaa xisbigii wadani ayaaba sayriyo gacal iyo Muuse Bixiyo codkiisa iyo kaartooyinkiisa cusub siyaasadda Soomaaliland soo kordhiyay adigu aniga ila hadal ayaa wada fadhidaan oo Boorama timaadeen bal arrinka ka warqabkii wax diimaray arrinkaas uu wanaagsan yahay casuumadii shalay dood ka horeysay ayna casuumeen casuumadaadu qiimo badan loo yahay laakiin joogitaanka Boorame reer awdal bukjeysay joogitaankiigu reer awdal ay ku jeysay macni kuba ka beesha Axmed ka soo jeedo keli Axmed dawana inuu kargiis ku lagelayna wada hadal kula bilaabay Britania la yiraahdo socdaalkaygu wuxuu ku jeysay reer awdal guud ahaan codka awdal ku jeysay awdal sida lagu heli lahayn in ka badan 60% ay ku jeysay yoolkaygu halka marka soo abaarayna jaamac inta badan waxa la yiraahdaa jaamac inta badan waxa la yiraahdaa markay kulmiye timaado wax kasta xagaas iska dhiga waxa kaliya adiga kulmiye mas'uuliyiinta kale ku dheeraad xisbiga u jecesha hadaad bulshada u sheegto waxa xisbinimadu horta waxay soo saartaa dadka waxay dhistaa waxay koobtaa oo dhistaa talada wadanka talada ummadda waddankeena qabyaalad baa marka hore lagu soo dhisay qabyaaladuna meel bay ina gaarsiisay lama dhaafsiinaysa halka inaynu ka korrano waynu u baahannahay oo in horumarka adduunku gaarno si aynu taa u gaarno waa inay xisbiyadu noqdaan xisbiyo majuura oo hanan kara oo soo saari kara hogaamiyayaal dalka hanan kara oo horumar gaarsiin kara taana uu higsanayana waa taa weeye daawadayalkaas wuxuu ahaa jaamac Ismaaciil jaamac Shabeel oo ka tirsan hogaanka sare xisbiga talada dalka haya kulmiye oo shabakada caalamiga ee Boorama News ugu waramayay magaalada Boorama isagoo socdaal ku jooga si fiicanna horta waqtigiisa aan aad uga mahad celinayo